Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaad mawduucina maanta waxaan ka hadli doonaa xikmado iyo murti aad u qiimo badan. Fadlan subscribe noo saar haddaan ku cusub tahay. Mahadsanid. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. Ilaahay qalbigeena ayuu ku tuuraa kalgacayl iyo jacayl. Habeenkiin qof wax jecel sababta uu jeclaado qofkii soo dhadhamiya mugdi jahliga uu leeyahay wuxuu ogaadaa qiimaha cilmiga uu leeyahay. Qofkii yaraantiisa wax baran waayo weynaantiisa wax horumar ah ma sameeyo. Laba qof ma dhergaan, mid cilmi raadinayo iyo mid maal raadinayo. Kalsoonidu waa inaad naftaada jeclaataa oo aad ogaataa qiimaha uu aadan la barbar dhigin dadka kale. Guuleystayaashu ma ahan kuwa guul dareysta, laakiin waa kuwa weligood is dhiibin xaalad kastoo soo wajahda. Mid ka mid ah waddooyinka aad ku noqon karto qof farxad ku nool waa inaad ka tagtaa shay walba oo kuu murugo gelinayo. Weligaada ha lumin rajada, waayo ma ogid berrito waxay noqon doonto. Weligaada samee wixii naftaada farxad gelinaya. Ha ku lumin waqtiga adoo doonaya inaad waxyaabo badan takhasus u yeelato. Taasi waxay kaa dhigaysaa qof aanan weli dhadhamin mirihii guusha. Baro cilmiga, waayo wuxuu kordhiyaa aragga qofka.